Kulatuucan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay ee xilligan ka taagan guud ahaan caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe. Maanta waxaa fadhi degdeg isugu imaan doona xubnaha golaha wasiirada Israel waxaana ay ka wada hadli doonaan joojinta dagaalka ka socda magaalada Gaza iyo maxaabiis isweydaarsiga barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Wasiirka maaliyadda ee Israel waxa uu diidan yahay una guul ku tilmaamaya haddii la ogolaado in xabadda laga joojiyo magaalada Gaza in Hamas ay guul ay uga dhignaan doonto. barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxyaabaha kale aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid ah meelo ka mid ah Gaza waxaa daadsan meydad waxaana la tilmaamayaa qeybaha waqooyiga Israel in ay isaga baxeen ciidamada Israel. barnaamijka qodobadaas iyo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan China waxa ay marti gelinaysaa wadahadalo u dhaxeeya kooxaha Hamas iyo sidoo kale Fatah. waxyaabaha kale inoogu soo kordha ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan intuu hawada uu ka baxayo wixii aragtay fikri aaraad inoo hees waxaan ugula wadaagi doontaa qaybta faallada adigoo arrimahaasi ka soo aragtay dhiiban doona si shargaree muuqaalkan oo like garee saaxiibadaada si ay u gaaraan maasanidin soo dhow daawaday waxaynu ku hormari doonaa golaha wasiirada ee Israel ayaa maanta waxa ay isugu imaan doonaan fadhi degdeg ah oo ay uga arrinsan doonaan xaaladda Gaza iyo sida wax laga yeeli doono in Israel ay gali doonto heshiiska ku saabsan xabad joojinta jiida Gaza. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa shir gudoomin doona shirkan oo la isugu yeeray golaha wasiirada ee Israel. waxyaabaha dooda ay ka taagan tahay waxaa qayb ka ah sidii ay golaha ay u ogolaan lahaayeen in heshiiska maxaabiis isweydaarsiga lala galo kooxda Hamas. balse arrintaasi waxaa mucaaradsan wasiirka maaliyadda ee Israel kaas oo ka soo horjeeda fadhiga kulankana in la qabto iyo sidoo kale in ajandaha lagu soo daro waxyaabo ku saabsan arinta Gaza iyo sidoo kale heshiiska lala galayo. wasiirkan waxa uu ku doodayaa in haddii ay Israel ay ogolaato maxaabiis isweydaarsiga heshiiska quseeya in ay uga dhignaan doonto in hogaamiyaha kooxda Hamas Yahya al-Sinwar inuu ku guuleystay dagaalka ka socda magaalada Gaza. waxay uga dhignaan doontaa ayuu yiri kooxda Hamas guul weyn hadiiba ay Israel ay aqbasho heshiiska maxaabiis isweydaarsiga. balse waxa uu tilmaamay bedelkeeda in ay Israel ay ku qasbi karto kooxda Hamas in la sii wado duqeynta iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro ee magaalada Gaza ka socda. dhinaca kale kooxda Hamas waxyaabaha ay soo jeedinayso ee miiska la dhigi doono waxa qayb ka ah yiri in Israel qayb ahaan ay isaga baxaan waqooyiga jiida Gaza gaar ahaan barta la yiraahdo Philadelphia halkaasi oo isku xirta Gaza iyo sidoo kale dhinaca Masar. haddii goobtaasi ay ka baxaan waxa uu wasiirka uu sheegay in guul weyn uu soo hoyatay kooxda Hamas ay noqon doonto. inkastoo Hamas la leeyahay haddii aysan shuruudaha noocaas oo kale Israel aysan ka soo bixin aysan suurtagal ahayn in ay wada hadaladu ay qaataan. Israel waxa ay tuhmaysaa yiri bartaasi control haddii ay isaga baxaan in ay tahay meelaha ay hubka ay ka hesho ama laga soo geliyo ee laga soo tahriibiyo hubka gacanta ay u gali doonaan kooxda Hamas. kooxda Hamas ayaa iyadu waxa ay ku andacoonaysaa in marnaba aysan ka labalabeynaynin in ay wada hadal ay la gasho Israel si loo joojiyo dagaalka loona bilaabo gargaar bini'aadanimo oo la gaarsiiyo shacabka reer Falastiin. Hamas hogaamiyaasheedii ku sugan dhinaca magaalada Dawxa ee dalka Qatar gaar ahaan madaxa xafiiska siyaasadda ee kooxdani Hamas Ismaaciil Haniya waxa ay diyaar u yihiin in la sii wado wada hadalada si loo joojiyo dagaalka ka socda magaalada Gaza. Hamas dhowr jeer waxa ay soo jeedisay in heshiiska lagu soo daro in ciidamada Israel qayb ahaan magaalada ay ka baxaan sidoo kale konton ka mid ah leesayaasha gacanta ugu jira ay sii daayaan. balse Israel waxa ay tilmaamtay inay doonayso in dagaalka dib loo bilaabo haddii xabad joojintaasi ay dhaqan gasho muddo 6 toddobaad. Hamas waxay ka soo horjeedaa in dagaalka dib loo bilaabo waxaana ay shuruudaheedii ka mid ah in 6 sano ama ilaa 5 sano oo xabad joojin ah magaalada Gaza laga hirgeliyo. sidoo kale Hamas waxa ay soo jeedisay in dawladda Mareykanka ay damaanad qaado heshiiska qodobada ay ku gali doonto Israel. waa in uu noqdaa yiraahdeen bayaan ka soo baxay kooxda Hamas qoraal oo ay dawladda Mareykanka ay ballan qaadayso in Israel marnaba ay ka bixi doonin heshiiskaasi. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo golihiisa wasiirada waxa ku adag ayaa yiri in ay Hamas ay ku sii sugnaato magaalada Gaza. waxyaabaha ay ka fekerayaan oo laga sugayo waxa ka mid ah ayaa yiri qorshe istiraatiijiyadeed waxa xigi doona dagaalka lagu qaaday magaalada Gaza haddii Hamas meesha laga saaro. ilaa iyo hadda ma jirta ayaa la leeyahay qorshahaasi waxaana ay keentay in golihii wasiirada ee dagaal la kala diro. fariiga maanta ay isugu imaan doonaan golaha wasiirada ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Netanyahu
ayaa la filayaa inay ku ogolaan doonaan in ay xukuumaddu ay si degdeg ah ay ku gasho heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis iswadaarsiga ee lala galayo kooxda Xamaas. dowladaha Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa iyagu garwadeen ka ah wadahadaladaasi. waxaa la filayaa toddobaadkan in madaxa Mossad ee sirdoonka dibadda Israel in uu tago magaalada Dawxa ee dalkaasi Qatar. waxaana ninkani la tilmaamayaa in uu doonayo in dhinacyada uu ku sii cadaadiyo in la sii wado wadahadalada uu ka socday magaalada Qaahira ayaa loo weeciyay dhinacii magaalada Dawxa si loo sii ballaariyo ayaa la yiri wadahadaladaasi. dowladda Mareykanka waxa ay cadaadis ku saartay dhinaca iyo Israel in loo baahan yahay waqtigani in wadahadaladaasi la galo si loo soo afmeero dagaalka ka socda Gaza iyo sidoo kale sidii gargaarka bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa shacabka ku dhibaataysan magaalada Gaza. wasiirkan maaliyadda ee Israel ayaa waxa uu ku doodayaa in aysan suurtagal ahayn in xilligani la dayaco guulo uu tilmaamay in ciidamada Yahuuddu ay ka gaareen dhinaca jiida Gaza. inkastoo ay jiraan wasiiro kale oo iyagu diidan in dagaalka uu sii socdo. wasiirka maaliyadda ee Israel waxa uu carabaabay in uu mar kale uu muujin doono mucaaradnimadiisa in ay Israel ay ogolaato heshiiska xabad joojinta ee jiida Gaza ka dhacaysa. dhinaca kale magaalada Rahof ee galbeedka Tel Aviv waxaa ka socda dibadbaxyo ay isugu soo baxeen qoysaska dadkoodii lagu haysto magaalada Gaza, kuwaasi oo weli dalbanaya ayaa la yiri in dadkoodii la soo daayo, sidoo kalena cadaadis ku saaraya xukuumadda Israel in heshiis degdeg ah ay Xamaas ay la gaarto. dadkan ayaa waxa ay yihiin ayaa la yiri aqribada iyo saaxiibada iyo taageerayaal qoysaska dadkoodii lagu haysto ayaa la yiri magaalada Gaza, kuwaasi oo isugu soo baxay ayaa la yiri sidoo kale magaalooyin ay ka mid tahay Tel Aviv. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay kalsooni weyn ay ku qabtaa ayaa la yiri sidii ay Israel ay u ogolaan lahayd in ay gasho heshiiska xabadda looga joojinayo magaalada Gaza. daawadayaal wixii aragtay fikri araad inooga heeso warbixintaasi waxaa nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee faalada adigoo ka soo aragti dhiiban doona warbixinta ku saabsan fadhiga degdega ay golaha wasiirada Israel ay maanta ay ku damacsan yihiin in ay kula heshiiyaan Xamaas sidii loo sii deyn lahaa maxaabiista gacanta ugu jirta Xamaas, iyaguna ay u sii deyn lahaayeen boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo lagu haysto xabsiyada Israel. warbixino kale ayaad goordhow daawan doontaan, balse waxaa ka soo hormari doona qadar yar waxay mana idilkiin soo dhawaada kulligiin dawo aad u sareysa saaxiibada balhooya saadiya murqaha hadduu socodku dhibayo dawada safa saaxiib naga ho ha siyaado orodku asaxnaato kubadda dawada safa saaxiib naga ho sugana dawadan saxana waxtarkeed safa medicine wax la siistaan jirin. dawada safa waa dawo dabiici ah una rool murqa xanuunka kala goostyada dhabar xanuunka iyo wixii lamid ah. waa dawo kareem ah lana marsado jirka ayna qaadan karaan dadka waayeelada ah iyo kuwa ciyaaraha dheela iyo inta ka cabanaysa murqaha iyo kala goosyada. waxaad ka heli kartaa dhammaan gobolada dalka Mareykanka, Yurub iyo Afrika, iyadoo dawada safa ay tahay markii labaad oo la keeno Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. dawada safa waxa soo saara Safa Beauty Company. waxaana waxaad kala xiriirtaa iwaanada shaashada kaaga. waxaaga daawadayaal markaan haddii aynu qadarkaasi xayeysiis halkaasi uga gudubno waxaynu eegi doonaa dalka China. dowladda wadanka China ayaa waxa ay mar kale ay martigelin doontaa wadahadalo u dhaxeeya kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta sida Fatah iyo sidoo kale Xamaas. dowladda China waxa ay doonaysaa ayaa la yiri in dagaalka Gaza haddii uu soo idlaado in kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiintu iyagu siyaasad ahaan isdiidan in ay midoobaan dowladna loo dhiso. ilaa iyo dowlado gaaraya 4 dowladood ayaa waxa ay bilihii la soo dhaafay oo kuwa Yurub ay aqoonsadeen in Falastiin dowlad madax bannaan ay noqoto. China waxa ay ka shaqeynaysaa ayaa la yiri inay iska soo aragti dhawaadaan kooxda Fatah ee uu hogaamiyo Mahmoud Abbas madaxweynaha maamulka Falastiin iyo sidoo kale kooxda Xamaas ee iyadu ka dagaalanta jiida Gaza. labada maamul oo daanta galbeed iyo sidoo kale Gaza ka dhisan ayaa la yiri waxa ay dowladda China ay doonaysaa in hal maamul laga soo saaro dowlad wadaagna ay wax ay ku dhistaan si loo helo dowlad madax bannaan oo Falastiin ay yeelato. waxaan halkaasi doonayaa daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyo warbixino wixii xilligan ay ka taagan guud ahaan caalamka. nabadgelyo.